waxaa maad iska Allah subhanahu wa ta'ala marka koowaad marka labaad waxaan u mahad celinayaa bulshada yani waxa weeye reer Gurceel oo nagala qayb qaatay hawshan oo noo soo gudbiyay maaragtay xogta aan ku howlgalnay marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa ciidankii howlgalka galay iyo saraakiisha hogaaminaysay runtii waxay sameeyeen ciidanka booliska degmada Gurceel ama laamaha amniga degmada Gurceel howlgal aad u ballaaran oo maaragtay ku baacsanayeen dadka isticmaala maandooriyaha waxay soo qabteen ciidanku maandooriye aad u badan oo isugu jira khamro iyo xashiish waxay soo qabteen khamro laba nooc ah oo nooc waaweyn oo dhalooyinka waaweyn ah iyo nooc yar yar ah nooca waaweyn ay soo qabteen wuxuu ahay 98 xabo oo maaragtay waaweyn ah nooca yararkaana waa 297 khamrada nooca yararka ah cagaha yararka ah waxay naga soo gashaa khamradan ama ay nooga timaadaa ama ay maaragtay deegaanka ka soo gashaa xuduudka dheer oo Itoobiya maaragtay loo wadaagno ayaa khamradu naga soo gashay runtii ciidanku waxay intay howlgalka ku jireen ay soo qabteen dad maxaabiis ah ama yani waxa way eedeysanayaal oo ilaa 6 qofood ah 6daas qofood 5 qofood oo kamid ah waxay isugu jireen dadkii guryahooda khamrada laga soo qabtay kuwa markaa ka ganacsanayay kuwa isticmaalay waxa kale oo kamid ah dadka la soo qabtay hal maxbuus oo markaa lagu soo qabtay xashiishad lagu soo qabtay ayaa kamid ahay sida ay maaragtay dadka eedeysanayaasha ah oo la soo qabtay 6daas qofood ay ahaayeen waxa la horgeey doonaa insha Allah ta'ala eedeysanayaasha la soo qabtay sharciga ayaa la horgeey doonaa wixii markaa ay ku mutaysaan ayaan maaragtay la marin doonaa insha Allah ta'ala waxaan rabaa marka meeshan in aan markaa ka soo jeediyo codsi aan soo jeedinayo bulshada reer Gurceel oo aan markaa ka codsanayno in maaragtay ay nagala shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa maandooriyaha runtii maandooriyuhu waxa weeye wax aad iyo aad maaragtay u dhib badan xumaan oo dhan asaga baa maaragtay saldhig u ah qofka markii ay damiirkeeda ama aqligeeda ama dareenkeeda uu joogo wax badan bay maaragtay ka xishoonaysaa wax badan bay ka baqaysaa laakiin markii aqligeedu uu tago oo isticmaasho maandooriyaha waxa ka tagaya cabsidii iyo xishoodkii iyo maaragtay wax walba oo markaa qofku isku xakameyn lahayd waxay markaa tagaysaa inay maaragtay dadkii dhacdo inay dadkii disho inay maaragtay gabdhihii kufsato xumaan oo dhan bay maaragtay ay ku kacaysaa qofka markii dareenkeeda iyo aqligeeda uu tago marka waxaan ka codsanaynaa bulshada inay naga mahad celinayaa sida ay noogala qayb qaateen xalay howlgalkaas yani waxa weeye maaragtay lagu soo qabtay maandooriyaha faraha badan waan uga mahad celinayaa say noogala qayb qaateen haddana waxaan ku boorinayaa oon ka codsanayaa in ay maaragtay si weyn noogala shaqeeyaan sidii maandooriyaha looga hortagi lahaa maadaama caruurteennii iyo dhallinyaradeenii iyo maaragtay nooc walba oo maaragtay bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhibaato weyn aad fara badan oo ku hayo sida ayaan maaragtay u soo jeedinayaa waxaan codsanayaa waan ka codsanayaa saraakiisha naga sareeyana waxaan ka codsanaynaa in maaragtay ciidankii howlgalka sameeyay iyo saraakiisha hogaaminaysay in la amaal mariyo oo maaragtay loo sameeyo amal marin loo sameeyo sida ayaan ka codsanayaa hadalkayga inta aan ku soo gabagabeynayaa hadalku wuxuu ku kooban yahay intii uu taliyuhu yiri runtii waxaan halkaan u nimid galabtay in aan dhiirigelino ciidamada amniga ee degmada gaar ahaan ciidanka booliiska degmada Gurceel iyo taliska booliiska oo runtii shaqo aad u wanaagsan qabtay waxaan leenahay ilaahay agtiisana ajir Allah in ka siiyo deegaanka iyo dadka aad mas'uuliyadda amniga u haysaan shaqo fiican ayaad qabateen runtii waa nasiib darro in dhalinyaro Soomaaliyeed dhalinyaro reer Gurceel ah ay ku fakaraan inay waxaan maandooriyaha intaan la eg ay soo galiyaan deegaankooda ayna ka raadiyaan muxuu ahay quntul daruuri waxa ka haboonaa lahayd qarashkii la galiyay khamro ama maandooriyaha intaan la eg in loo wiciyo ganacsi kaleeto ama waxyaabo kaleeto wanaagsan ayaa jiro in dhinacaas la galiyay ayay ahayd marka in qof Soomaali ah ee muslim ah oo ka fakaro in uu maantay khamro iyo maandooriye xashiish iyo waxyaabo qashin intaan la eg oo ka raadiyo ganacsi iyo dhaqaalo runtii waa wax aad iyo aad u foolxun waxaan rabnaa dadkan waa soo laalaabatay bariyahan dambe arintan maandooriyaha iyo muxuu ahay la xiriirta khamrada iyo xashiishka waxayna kalifi kartaa arintan haday sii badato
in deegaanka amni darro iyo muxuu ahaay tuugo iyo wax lamid ah ay deegaanka ku soo bataan si looga hortago waxaan rabnaa qof kasta oo lagu soo qabto maandooriyahan iyo muxuu ahaay arrimaha la xiriira in uu qaab kulul la kulmo laamaha amniga waxaan rabnaa in ay si fiican oo la xisaabtamaan dadka hawlahan kulugta leh gaadiidka keena magaalada hadday tahay dhalinyarada ka ganacsata hadday tahay muxuu ahaay dadka soo fududeeya intaba waxaan rabnaa in si fiican arrintooda maadaama ay nagu soo badbadatay oo soo laalaabatay in arrintan si mug leh looga shaqeeyo in si muxuu ahaay taxadar leh looga hortago ayadoo la adeegsanayo runtii xalay abaar 3:47 daqiiqo ayaa taliyihii watay howlgalkan soo wacay uu sheegay in intaanoo muxuu ahaay qamri ay soo qabteen waa dareemi kartaa xilligaas ciidamadu inay shaqaynayaan waxay mudan yihiin bogaadin iyo muxuu ahaay abaalmarin iyo muxuu ahaay in aan ammaano shaqadooda ku ammaano taliska booliiska degmadana runtii waa si goonihan ugu mahadcelinaynaa shaqada ay maalmaha dambe wadaan waa ku mahadsantihiin annaga ka maamul ahaan waa in garab taagannahay ciidamadana waxaan ku dhiirigelinaynaa maamulka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waa in garab taagan yihiin waa in ku ammaanayaan shaqada aad haysaan waxaan leenahay ku sii dhiirada bulshadiinana badbaadinteeda iyo muxuu ahaay ka hortagga waxyaabaha dhibaatada ku ahna ka sii shaqeeya waan ognahay runtii inaad duruufo adag ku shaqaysaan waa ognahay inaad iyadoo laga yaabo in gaadiidka iyo howlgallada wixii loo adeegsanayo dhan ay liitaan haddana inaad ku dhiiranaysaan inaad si wanaagsan u shaqaysaan waa ku ammaanayaa taliska waa mahadsantihiin mar kale waxaan leeyahay arrintaani waxaan rajaynayaa sida maanta ay u bilaabatay ama maalmo hore waxaan ognahay dee bishan gudaheeda waa markii saddexaad ee qamri iyo xashiish iyo waxyaabaha maanka dooriye la soo bandhigo marka inay tani noqoto tii u dambaysay ee deegaanka soo gashaan rabnaa si ay u noqotona waa in idinkoo kaashanaya bulshada iyo sirdoonkiina waa inaad si fiican uga dadaashaan in arrimahaani aysan soo laaban aysan beledkaba soo gelin oo ka hortag lagu sameeyo inta aysan magaalada imaanin marka waa mahadsantihiin mar kale waa shaqadeenu un bogaadin iyo waxay ahayd inaan ku dhiirigelin inaan garab taagannahay ilana shaqaynayno in kuna ammaanayno shaqada aa haysaan aadaan inkaga mahadcelinaa howlahan iyo howlaha kaleeto ee bulshada u haysaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu